بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحالي لهذا قدر الداهر وحان فرتي جنة عصب ويوتيوب. ما انتو حان ربا إنان دادك لو داقو سيدا اوفو انت هذا شقة آدن اما دسكولك مركز ilmaha gees kasoo noqoto sida ugu fudud oo guriga loo hagaajin karo. Hadii ilmaha iskoolka ka yimaadeen boorso halkaa waa lagu tuuray suwaalka halkaa. Marka waxaan hagaajin doonaa qolka fadhiga iyo jikada hadii ilaahay idmo sida ugu sahlan. mar waliba guriga in la hagaajiyo waa muhiim. ilmaha muhiim bay u tahay adiga noloshaada iyo ahaantaada muhiim bay u tahay xagga nadaafada iimaanka. markii guriga saad isu dhex yaalaa waxaan ka bilaabi doonaa qolka fadhiga. waxaan ku xijin doonaa hadii ilaahay idmo jikada oo musalsal noo socon doona hadii ilaahay idmo ilaa iyo inta aan ka baranayno sida ugu sahlan jikada loo hagaajiyo. waxaan rabaa inaan kala u sheego gabdhaha walaalaha weliga telefoon meel hala fariisanin adoo gurigaagu is dhex yaalo waxay rabtaa ha noqotay xitaa qof haduu ku soo waco ama muhiim u raba ku ahaado ama dhar laalaab haduu guriga ku hagaagsan yahay qaanadaha iska tirtir jikada sidaa bay u taalaa. waxaan baran doonaa sida ugu fudud oo u nadiifin karno maanta ila socda. ila waxaan ku guda jirnaa nadaafadii. hadda qolka fadhiga saas ayaan ka dhigaan dhameeyay. waxaan waraabin doonaa geedaha. geeduhu aad iyo aad waxay muhiim ugu yihiin guriga maxaa yeelay waxay ka saaraan guriga huyaca bay ka saaraan iyo waxay siiyaan naqaskay ka bixiyaan. guriga sidaa baan u nadiifiyay hadii ilaahay idmo qolka fadhiga. sidaa u ekeeyay maasha allah. geedahan meesha saaran waa qofkii haduu dhididay inuu iska xijiyo. badanaa waxaan isticmaalnaa xilliga fintarka. guriga sidaa baan kaleen uga dhigay. qolka fadhiga sidaasay ku dhamaatay nadaafadiisii. waxaa inoo haray jikada hadii ilaahay idmo. dhexdii saasaan u nadiifiyay. geedkan aan arkaysaan hadii ilaahay idmo qaybaha dambe ee fiidiyoda ayaan idinku sharxi doonaa ayagoo badan hadii ilaahay idmo. maxaa yeelay haddaan hooyooyinahay subaxdii waxaana jira stress iyo orod markaan ilmuhu iskoolka aadayaan ama ay balan leeyihiin waxyaalaha loogu talagalay in tusi doonaa ayagoo badan hadii ilaahay idmo. dhexdii sidaa weeye qolka fadhiga. jikada aadi doonaa hadii ilaahay idmo. jikada sidaa bay isu dhex taalaa. marka ugu horeyso miiskan waxaan ku furayaa qalimada ee ilmuhu saaka uga tageen intaysan iskoolka aadin. marka waxaa kaloo jirto guri ilmo joogaan lagama waayo buug iyo maxaan ku dhahay wax isdhex yaalo. geedkan baad waxaad kusoo garan kartaa dukaamada kuugu dhow doolarka oo kale dadka Yurub jooga ama Afrika meelaha ama liidalka asagaad buugta ku guraysaa. dabool buu leeyahay. buugtaasoo isaga waa gurtay hadii ilaahay idmo. miiska marka sidaa buu kugu nadiifiyay. waxaan isticmaali doonaa geedan dukaan walba way taalaa sidaa u egtahay. ilmuhu markay bakteeriyada miiska ka dishaa qaanadaha lagu tirtiraa miisaskaa lagu tirtiraa. haddaad rabto adigu waad ku qasan kartaa. markaas ugu buufinaya hadii ilaahay